bayd isuduha wasaaradda jeedka iyo gaadiidka taliyaha qaybta booliska injineerada iyo wakiilada hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda jidadka iyo dhammaantiin odayaasha runtii deegaanka iyo waxgaradka iyo gudidii wadadan gacanta ku haysay waqtiga badan gelisay dhammaantood salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh mudan ayaal kulay maanta waa maalin weyn qofba cidba farxad gaar dareemaysayo kulay anagu farxad gaaran dareemeynaa wadadan fikirkeeda anagu qof ahaan aniga iska lahaa maalintii ugu horeysay markaan Cabditax Umar Faruur iyo garaadka guud ee dhulbahante aan la wadaagay iyo Cabdikarin Dhowkir way la yaabanaayeen waxay lahaayeen ma wadan samaysan karnaa waxa ku anaga madaxweynaha u gudbinay madaxweynaha markaan u geynayna runtii si wacan nooga aqbalay ifaaliyeedina wata muuqata community-gu culayska ugu weyn bay geliyeen iyaga wadadan samaystay waqtigeedana iyaga geliyay dadka wax wanaagsan baa la dhex keenaa wax wanaagsan baana ka socda in horumar loo socdaan ogaan kadibna go'aamaan soo saarnay go'aamadina waa kuwa maanta ay ku shaqeynayso haddii dawladda iyo shacabku iskaashadaan wax badan ba qabsoomaya runtii geed sare kuwaabkii iyo beenta aan ku noolayn iyo wixii dhulbaante ku habsaamay haddaynu maanta ka baxnayo aynu wadooyinka marayno oo systemkii aynu u jeensanay inagoo dhan sharaf bay inoo tahay wana maanta aynu isugu nimid aynu ku jirno annagu waxaan isku codsanaa kaliya in amnigana laga shaqeeyo nabadgelyadana la xoojiyo si horumarkeenu uu soo xoogeysto dawladdu horeba ballan qaaday aad waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda jeedka gaadiidka oo meesha inoo dhagax dhigay ilaa iyo maantana Cabdullaahi Abubakar u taagan in uu gacanta ku hayo wax badan ka qabto qalabkiina soo diray insha Allah inta dhameystirana waa keeni doonaa dhaqaalaha dawladdu kulli system buu maraa system la'aanba waa idin doonaa insha Allah iyadoo aan shuruud lahayn baad naga heli doontaan madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday wadadan kala bayd robodadii ugu horeysay iyadoo la bilaabay bay u tagtay in wadadani samaysmayso marka isaguna diyaar wuxuu yahay sanad walba inta wadada socoto inuu miisaaniyadda idinku daro laakiin wixii muuqda muhiim gala arrintan maanta waxay muujinaysaa runtii qalabka halka yaala wasaaraddu soo dirtay wasiirku soo diray waxay muujinaysaa hiil dawladeed runtii iyo hiilka shacabka oo laga soo jawaabay haddii idinku wax qabsan oo bulshada isku tiirsanaan oo wax la qabana wax walaal ma qabteen marka wax qabadka idinku qabasateen iyo shaqada idinku qabateen baa keentay in dawladdu idin garab istaagto iminkana diyaar baa xaqna waxaad u leedihiin runtii mar walba waxayna ka daaleen inaan wixii horumaran qabano sida maayirku u ballan qaaday laba waxba oo looga baahan yahay dawladda hoose inaan wadada lagu soo dhawaan runtii dhulka waa ku falanahay way sugnahay inamana deeqo dhibaato badan baa wadadan markii la sameeyay xaga dhulka inaga soo maray kow waxa ka ahaa cidda wadada gacanta ku haysa labana waxa ka ahaa community-ga u dhow saddexna waxa ka ahaa shacabka magaalada Laascaanood iyo dadkii beeraha iyo ku lahaa ragga beeraha la waxaan u sheegay in walba beertaada ha fidinin nina beertiisa uu fidinina intii hore ku ahaato nin walba cabrigiisa waa la yaqaanaa wadadana looma ogolaan doono in lagu soo dhawaado runtii idinkana dan idin ahayn inagoo dhan bayna dan inoo ahayn marka sida maayirku ballan qaaday runtii talaabada isaga laga rabaa inuu degdeg u qaado anaguna runtii hiiliyo waa la garab taaganahay aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin aminta oo kulul booqashadan aanu idinku nimid runtii waa mid aasaarteeda leh waana joogteyn doonaa haddii lahay idmo wax allaale wixii dawladda xaggeeda ku maqana waxaan ku dadaalaynaa inaad si degdeg u heshaan oo ay idinka soo baxdo gacanta dawladda idinkana waxaa laydinka rabaa inaad saa usii laba laabtaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa guddida iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka deegaanka wadadan gacanta ku hayay wasaaradda jidadka iyo wasaaradda gaadiidka jidadka oo mahadcelinaya wasiirkeeda Cabdullaahi Abubakar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Musabix Cabdi oo hiil mar walba in wadooyinku infrastructure-ku ay Soomaaliland ka hirgalaan ayaan isagana aad ugu mahadcelinayaa beeshaan u mahadcelinayaa garaad cali baan uga mahadcelinayaa halkan isaguna runtii oo horumarka deegaankan u sameeyay in guddi beesha ka tirsan ay sameeyso beelaha kala dhulbaantana waxa la ku daydo oo inta hubka ururisan guddiga samaysta saas oo kale horumarka idinka shaqeysa cid walbana danba ugu jirta in badan baynu xabad iyo dhibaato ku jirnay in badan baynu meelo badan eegin laakiin maanta waxaan eegaynaa dhulka iyo saynu waxna uga soo bixi lahayn horumarna aynu gaar lahayn dhammaan tiin waa idin mahadcelinaya insha Allah taala hiiliyo wayna garab taaganahay wixii amniga iyo wixii aad u baahataan
waa kan taliya qaybta bilisku diyaar bidin yahay iminkana ciidamo idin keenay meesha jooga waana sii joogdayn doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.